Soomaali weyn madaxweynaha Allah Allah waxaan rabaa inaan arkan ka hadlo macnaha hooyinka iyo dadka maartay isha iyo ilmaha iyo dhamaan dadka macnaha xaalad kuna ka socoto magaalada Muqdisho iyo meel walba dadka dacaladiisa hooyinkii waxa waaye ilmihii mataqaana nimankii ay taagayaan iyo hooyinkii dhibaato xoog leh ay ku jiraan caqabad ay ku jiraan ilmihii mataqaana dhibaato la gelina la farxumaynayo waxyaalo badan oo macnaha qasana jira Soomaali weyn meel walba ay joogaan Soomaalida ay joogaan waxaan leeyahay hooyinka waa inay noo soo gudbiyaan caqabad walba oo macnaha haysato waa inay dadka la soo gudboonaato waa inay soo gudbiyaan noo soo gudbiyaan shacabkeena meel walba ay joogno anagu waxaan noolaa shacabkeena ka hadalna dhibaatada iyo caqabada soo food saartay oo wadanka dacaleysa ku nool inaan uga hadalno dhibaatadaas oo ah haddii dhibaato xataa qoyska ay soo food saarto ama dhaqan la'aan ha noqoto ama lacag la'aan ha noqoto ama xaalad markaa jirta ha noqoto waa inay nala soo xiriiraan waxaan u samayn karnaa in aan macnaha lagu xadgudbin ilmahan aan lagu xadgudbin hooyinkan aan lagu xadgudbin mataqaana dad badan waxaa jira mataqaana caqabad ka wado wadanka dacaleysa ka wada jira oo xaasaskoodii iyo ilmahoodii intaba dilaan waa arrin annaga noo dhiman waa wax lacag lagu bixiyo ummadda Soomaaliyeed lacag lagu siiyay ilmahooda dilaan $25 lacag la isku dila maahan waxaan uga digayaa nimanka meel walba ay joogaan iyo gabdhaha iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ku nool qofkii qof mataqaana ay sheeg ama ilmaha dilo ama hooyinka dilo ama dadka dhexdooda dilo qofkaas caqabad xoog dhan ku kulmi doono arrinkaasna baaqan ugu diraa meel walba uu joogo macnaha haddii ay wax la dilayana macnaha isticmaal waxaa jiro ilmaha xataa looga shakiyo jiro qofka markuu ilmo dilaayo oo ku soo talagala ninka uu ilmihiisa dilay naagtiisa u rabo inuu dilo dhibaato macnaha oo guliyay waa wax uu dilooy waliya jirto xanuuna jiro waa in hooyooyinka ay nimankooda haday ka shaqiyaan ay dhahaan qaybta baarista hal la geeyo mar walba waxa way xanaaq wax ka keenaa wadin iska labisana waxa jira xanuunsan aad ogeyn oo ninkaadiya naagtaada inay xanuunsantaa laga yaabaa aad ogeyn macnaha dhibaato badan jiraan waa in waxaas macnaheedu waxay tahay dhaqaatiir macnaha ka howlgasta wadanka jiraan dhaqaatiirta loo soo gudbiyo oo laga amniga loo gudbiyo shacabka loo gudbiyo hooyinka loo gudbiyo odayaasha loo gudbiyo وبالله توفيق الله يا شهوة سيفك وسعتني كنا نقول الله سيفك وسعنا شهوة الله ينور حير دونا